astaamaha lagu garto qofku in uu liibaantii iyo wanaagii jidkeeda hayo waxaa ka mid ah in uu marka horeba jidka uu Ilaahay xaggiisa u soo raacay uu saxan yahay. sida awgeed qofka muslimka waxaa la rabaa in uu ka duulo mabda'a ku jira suuratul Faatiha. Faatixada suuradaas qiimaha badan ee salaad walba aynu akhrino waxayna baraysaa qofku in uu mar walbaba uu Ilaahay weydiisto in uu ku toosiyo jidka ugu saxan. sida awgeed waxaa loo baahan yahay qof walba dadaal walba uu samaynayo iyo jid walba uu qaaday oo wanaaga iyo inuu Ilaahay u dhawaado u raacayo inuu Ilaahay u kaashado uuna ka xoroodo aqoontiisa, xeeladiisa, cilmiga uu yaqaan, saaxiibada uu leeyahay ee wanaagsan ee Ilaahay ku xiran uu Ilaahay isku dhiibo. taas waxay u fududeynaysaa qofkaas inuu ahaado qof Ilaahay jidkiisii uu ku hagay. haddii ducada ah ihdina siraata almustaqiim laga aqbalo uu Ilaahay ka aqbalo waxaad xaq u leedahay ama aad mudan tahay in aad noqotid qolada liibaantay labada daar. sida awgeed waxaan iskula dardaarmaynaa qof walba oo naga mid ah maadaama aynu rabno inaan adduun iyo aakhiraba liibaano inaan Ilaahay weydiisano in uu jidka ugu saxan uu nagu hago. waxaana laf dhabar u ah quraankeena kariimka. Ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri inna hadha alqur'ana yahdi lillatii hiya aqwam. quraankan wuxuu kugu hagayaa jidka ugu saxan. Ilaahay ha nagu anfaco hana naga dhigo kuwa jidka toosan ku hagaagay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.